qalbigu sida uu noo sheegay nabigeenu calayhi salaatu wasalaam waa maxalu nadar illaahi min alcabd waa halka ilaahay subxaana wa tacaala addoonka uu ka eegaayo muuminka iyo munaafiqa wax kaloo kala soocay ma jiro waxa qalbigooda ku jira ayaa kala soocay xubnaha qofka bani aadamkaahi mar walba waxa ay sameeyaan wixii amara qalbiga ka soo fula kuwaasi ayay u hoggaansamaan oo ay fuliyaan qalbigu hadduu yahay qalbi iimaan iyo khayr alla weynayn iyo alla jacayl oo camiray xubnuhuna waxay noqonayaan mid kuwa sameeya camal wanaagsan oo ilaahay u jecel yahay raallina rabbi subxaana wa tacaala uu ka العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلهي بقى سبحانه وتعالى أمان يما هذا أردن له الله سبحانه وتعالى إن قارسيه بشان بركيسا ونسأل ربنا الكريم رب العرش العظيم أن يمن علينا في هذا الشهر الكريم في هذا الشهر المبارك برحمته ومغفرته sidaasi walaalayaal aada maqasheen ama iclaanka aada ku aragteen muxaadaradeena galabta biidni illaahi subxaana wa tacaala waxaynu waxoogay kooban ka sheegi doonaa ramadaanu wa acmaali اlquluub ramadaan iyo camalada qalbiga qofka muslimkaah uu ka sameeyo ilaahay subxaana wa tacaala loogu dhowaado xidhiidhka ka dhaxeeya iyo raadka bisha ramadaan ay ku leedahay qofka muslimka ee cibaadaysanaya acmaasha qalbigiisa taasoo ay ka farcamayso acmaasha jawaarixda iyo xubnuhu qalbigu sida uu noo sheegay nabigeenu calayhi الsalaatu wasalaam waa maxalu nadar illaahi min alcabd waa halka ilaahay subxaana wa tacaala addoonka uu ka eegaayo wuxuu uhi rasuulkeenu kamaa fi صaxiixi muslim in allaha laa yanduru ilىa suwarikum ilى أجsaamikum walaa ilىa suwarikum walakin yanduru ilىa quluubikum waacmaalikum ilaahay subxaana wa tacaala si aad u eeg tihiin iyo jidhkiina eegi maayo taasi waa abuur ilaahay addoomuhu kuma kala fadli bataan amaana qofku kuma mutaysto siduu u eeg yahay iyo jidhkiisu sida uu yahay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu eegayaa quluubtiina ilaahay wuxuu eegayaa acmaashiina ta qalbiga laga sameeyo iyo ta xubnuhu ay sameeyaan oo farac ka ah acmaasha addoonku qalbiga uu ka sameeyo acmaalu lquluub walaalayaal ahamiyadeedu waxa ay ka farac tahay ahamiyat lqalb qalbigu qofka bani aadamkaa halka uu ka taagan yahay qalbiga qofka bani aadamkaahi waa meliku acdaa'ihi wa amiiruhaa waa boqorka xubnaha iyo amiirka u taliya xubnaha qofka bani aadamkaahi mar walba waxa ay sameeyaan wixii amara qalbiga ka soo fula kuwaasi ayay u hoggaansamaan oo ay fuliyaan qalbigu hadduu yahay qalbi iimaan iyo khayr alla weynayn iyo alla jacayl oo camiray xubnuhuna waxay noqonayaan mid kuwa sameeya camal wanaagsan oo ilaahay uu jecel yahay raallina rabbi subxaana wa tacaala uu ka yihi qalbigu hadduu yahay mid xumaan iyo shar uu ka buuxana xubnaha taas ayuunbaa ka muuqanaysa wuxuu uhi nabigeenu calayhi الsalaatu wasalaam alaa waina fi اljasadi mudغة إida صalaxat صalaxa اljasadu kuluh waإida fasadat fasada اljasadu kuluh alaa wahiya اlqalb qofka bani aadamka jidhkiisa waxaa ka mida waslad oo wax hal mar afka la geliyo macnaheedu way yar tahay laakiin raadkeedu aada iyo aad buu u wen yahay haddii ay hagaagto jidhka kaleo dhami wuu hagaagayaa qofka wax allaaliya waxaa ka soo baxaya wuxuu noqonayaa khayr iyo wanaag haddii ay xumaatana xubnaha kaleo dhami way xumaanayaan iyada ayaa amarta waa qalbiga ayuu uhi nabigeenu calayhi الsalaatu wasalaam culamaau lislaam wa aطibaau اlquluub kabni اlqayim raximah اllah wagayrihi
aayaadka qur-aanka ee ka hadlaya qalbiga qofka bani aadamka ah iyo axaadiida nebiga calayhi الsalaatu wasalaam ee baabkaa ku saabsan si dhamaystiran bay u fahmeen. walihaada waxay yidhaahdeen hadal aada iyo aada u qiimo badan oo qofka muuminka maqlana raad kaga tegaya naftiisa iyo qalbigiisaba. ibn اlqayim raximah اllahu tacaala wuxuu yihi waman taأmala الshariicata fi masaadiriha wamawaaridiha calima irtibaaطa acmaali اljawaarix biacmaali اlquluub. qofka u fiirsado shareecada masaadirteeda ilaah ay ka soo maaxdo alkitaab waالsuna, mawaariddeeda wuxuu si dhaba u ogaanayaa acmaasha qofka bani aadamka ay xubnahan muuqdo uu ka samaynayo iyo acmaasha qalbigu siday isugu xidhan yihiin. wa annaha laa tanfacu biduuniha, iyo acmaasha xubnuhu inaanay nafci yeelanahayn. acmaal qalbi oo u hooseysa oo ay ku dul dhisantao faracay ka tahay haddaani jirin. wa ana acmaala alquluubi afradu cala alcabdi min acmaali aljawaarix. acmaasha qalbiga laga sameeyo tusaalayaal baynu insha allah ka sheegi doonaa. iyadaa ka faralsan, faralnimadeedu ay ka adagtay ka weyn tahay faralnimada acmaashan xubnaha dadku ay ka sameeyaan. dabeetana wuxuu sheegay arrin aada iyo aada u la yaab badan, arrinkaasoo laa yatanabahu lahu ila man ta'amala fi lqur'aani walaxaadiid. arrinkaas oonu ku baraarugahayn qofka u fiirsado qur-aanka iyo xadiidka mooyaane. wuxuu sheegay ibnu اlqayim raximah اllah muuminiinta iyo munaafiqiintu waxa ay ku kala baxeen ay ku kala soocmeen inaan ahayn acmaashan muuqata. taa waabay wadaagaan, bal waxaa laga yaabaa munaafiqu qof muumina inuu ka badsado. waxa ay ku kala baxeen waa acmaalu اlquluub. qaala raximah اllah wahal yumayizu اlmu'mina can اlmunaafiqi إلا بما قام في قلب كل واحد منهما من الأعماal. muuminka iyo munaafiqa wax kaloo kala soocay ma jiro, waxa qalbigooda ku jira ayaa kala soocay. alatii mayazat baynahuma. wahal yumkinu أxada الدخuل في الإسلام إلا بعمل qalbihi qabla jawaarixihi. miyay suurtagal u tahay qof inuu diinta islaamka soo galo ilaa inuu camalka qalbiga kusoo gala mooyaane? oo qofku islaamka wuxuu kusoo galaa waa camalu lqalb. laa ilaaha ila اllah hadduu afka kaga dhawaaqo ou idhaahdo waan ku islaamaya iyadoo qalbigiisa aan ku jirin waa munaafiq. yaquuluuna biafwaahi maa laysa fii quluubihim, yaquuluuna aamana iyagoon muuminiin aan ahayn. waa waxaa qofku uu muslim ku noqonayba acmaalu ljawaarix. وعبودية أعماal الqلوب وعبودية الqلب أعظم min عبودية الجawاarح. qofku inuu ilaahay ku caabudo subحaanaه وataعaalى acmaasha qalbigiisa ayaa ka weyn oo ka asalsan cibaadada ilahay u ku caabudo xubnihiisa iyo jawaarixdiisa. wa أكثar وأdwم, iyadaa ka badan acmaasha wanaagsan ee addoonka muuminka qalbiga uu ka sameeya ta xubnaha iyadaa ka badan, iyadaa ka daa'imsan. fahiya waajibaة fi kuli waqti. acmaal اlquluub waajib bay addoonka ku tahay saacad kaste, wakti kaste, daqiiqad kaste, ilbiriqsi kaste. acmaal ljawaarixna waynu ognahay waa cibaadaad waktiyo gooniyala, gaar ahaan kuwa waajibaadka ah. taasi waxay muujinaysaa walaalayaal acmaalu lquluub ahamiyada ay leedahay iyo iyadu inay tahay ta asalka ah ee ay tahay qofka muuminka ahi inuu xil weyn iska saaro hagaajinteeda, qurxinteeda iyo badinteedaba. ahlulcilmigu maray ka warrameen dadka marka la eego acmaalu lquluub iyo acmaalu ljawaarix waxay dhahen dadku labay u qeybsamaan. min annaasi man yahtamu biacmaali ljawaarix walaa yahtamu biacmaali lquluub. dadka waxaa ka mida kuwa xil weyn iska saara acmaasha xubnaha laga sameeyo, taasay aada ugu dadaalaan. mar haddii acmaashaasi ay ku dadaalayaan, munaafiqiinna aanay ahayna muuminiin ay yihiin, asalkii acmaasha quluubtuna waa joogaa. laakiin acmaalu lquluub inay xoojiyaan oo iyada ay kobciyaan oo ay badiyaan xil isagama saaraan siday xil weyn isaga saaraan acmaalu ljawaarix ee ku dadaalkeeda. wa min annaas man yahtamu biacmaali lquluub
dadka waxaa ka mida kuwa xil weyn iska saara acmaalu lquluub laakiin maca dalika yudayicuuna kaiira min aطaacaat haddana waxay dayacaan in fara badan oo ka mid ah waxyaabaha ilaahay subxaana watacaala lagu adeeco rabbi lagu caabudo ee rabbi loogu dhowaado qeybta saddexaada dadku waa man yahtamuuna biacmaali اlquluubi wاljawaarix waa kuwa xil iska saaraya acmaasha qalbiga iyo acmaasha xubnaha labadaba walakin ihtimaamuhum biacmaali اlquluubi acdamu wa akhar xilka ay iska saarayaan acmaasha qalbiga ayaa fara badan oo weyn waa iyada ayaa asalkiia acmaalu ljawaarix inay hagaagtaana hagaaga camalka qalbiga ayay ku xidhan tahay ibnu lqayim raximah llahu tacaala mar kale wuxuu tusaalayaal ka bixiyey acmaasha qalbiga ee wanaageeda iyo ahamiyaddeeda uu inoo sheegay qaala wacamalu lqalbi kalmaxabati lahu camalka qalbiga maxaa ka mida jacaylka ilaahay la jeclaado hada min acmaali اlquluub jacaylka la jeclaado nabiga calayh الsalaatu wasalaam maxabat اlinsaani lidiinihi waliطaacati rabbih jacaylka addoonku uu jeclaado diinta rabbi subxaana wa tacaala iyo ilahay inu adeeco wاtawakulu calayhi waxaa ka mida acmaalu اlquluub ilahay in la tala saarto kalmaxabati lahu wاtawakuli calayh wاlinaabati ilayhi iyo qalbiga addoonku inuu noqdo mid ilaahay u noqonayo subxaana wa tacaala oo ilaahay ukhuduucsan oo ukhushuucsan mar walba wاlkhawfi minhu acmaal اlquluub waxaa ka mida baqaha addoonku ilahay u ka baqo wاlrajaa'i lahu iyo rajada uu rajayo ilaahay fadligiisa iyo naciimkiisa iyo raalli ahaanshihiisa waikhlaasi اdiini lahu acmaal اlquluub waxaa ka mida oo la odhan karo waa ahamuha wa asluhaa ikhlaaska in acmaashiisa oo dham ilaahay daraaddii ay noqoto wالصabri calىa awaamirihi wa can nawaahihi acmaasha qalbiga waxaa ka mida addoonku inuu ku sabro wuxuu ilaahay faray samayntiisa inuu ka sabro waxa ilaahay uu diiday calىa aqdaarihi wاridaa bihi wa canhu acmaal اlquluub waxaa ka mida sabirka addoonku uu u sabro qadarada ilaahay wa xanuujiya acmaal اlquluub waxaa ka mida addoonku inuu ilaahay raalli ku noqdo an yardaa biاllahi rabا wa ilaha wa macbuuda wa canhu ilaahay raalli inuu ka noqdo oo ilaahay subxaana wa tacaala xukumkiisa iyo abaalmarintiisaba raalli uu ku noqdo wاlmuwaalaati fiihi wاlmucaadaati fiih acmaasha qalbiga waxaa ka mida ee muhimka ah addoonku inuu noqdo cidda uu jeclaanayo cidduu xidhiidhinayo cidduu xigtaysanayo cidduu siinayo cidduu soo dhoweynayo ilaahay daraaddi mid u yeelaya arrinkaa cidduu colaadinayana ilaahay daraaddi miduu colaadinaya inuu noqdo wاdulli lahu wاlkhuduuci wاlإkhbaati ilayh acmaal اlquluub waxaa ka mida addoonku ilahay inuu u dulloobo ilaahay hayin inuu noqdo rabbi subxaana wa tacaala inuu khushuuco qalbigiisu wاطumaaniinati bihi wagayri dalika acmaalu اlquluub waxaa ka mid a addoonku inuu ilaahay ku xasilo an yaطmaئina biاllah inuu ilaahay ku xasilo subxaana wa tacaala wayahiqa biاllah wayactamida calى اllah wayufawida umuurahu ilى اllah wagayri dalika min acmaali اlquluub alatii farduhaa afradu min acmaali اljawaarix acmaalu lquluubta uu tusaalayaasha ka bixiyey ibnu lqayim wuxuu leeyahy waxay u qeybsantaa faral iyo sunne teeda faralka ka faralsan tahay acmaasha xubnaha ee faralka ah wamustaxibuhaa axabu ilى اllahi min mustaxabiha wamustaxabuhaa axabu ilى اllahi min mustaxabiha acmaalu lquluub oo teeda sunnaha ah ilaahay uu ka jecel yahay ta sunnaha ee acmaalu ljawaarix ka mid ah wa camalu ljawaarixi biduuniha ima cadiimu lmanfaca aw qaliilu lmanfaca camalka addoonku xubnaha uu ka samaynaya haddii acmaalu ljawaarix acmaalu lquluub aanay la socon ama waa bilaa manfacaba ama manfacadiisu aada iyo aad ba u yar tahay ayuha almuslimuuna cibaad allah ilaahay wuxuu ku dhaleeciyey munaafiqiinta inay quluubtoodu tahay mid ka maran acmaalu lquluub muuminiintana ilaahay wuxuu ku ammaanay in quluubtoodu ay ku sifowday qabashada acmaashaasi la sheegay iyo kuwo kalaba ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yihi maruu ka warramayay muuminiinta inama almu'minuuna aladiina ida dukira allahu wajilat quluubuhum muuminiinta iimaankoodu dhamayska tirayo waayo waa kuwa sifadooda koobaad ay tahay
عملك أعماش قلبي كمدا والوجل الخوف من الله سبحانه وتعالى قلوب تودا إلهي كبقتها الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله إلهي وحكوا أماني عمل القلب كلا قلبي قود إنو تشعليهي وقوتو كحصلو لا أنتنا آن الدقين ذكر إلهي ألا بذكر الله تطمئن القلوب مركل إلهي وحموتيي أدونك إلهي أعماش قلبي إنو وافتشي إن تاي النعمة ديادوين وربي أدومها أعمال القلوب وافتشي وأقوم النشاكت هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم إلهي واكا سكينة وحسلوني ده وطمانينة ده قفك وكحسل إلهي سبحانه وتعالى عبادة وكحسله ذكر إلهي وكحسله إلهي سبحانه وتعالى أبا المرنتي سو كحسله إلهي بادتك مؤمنين تقلوب توقلي وحو إلهي أدومي سوقو من الشاكتي ووحاد إياد وين أدونكو هديء قلبي وهقاقو وأعمال القلوب قلبي قيسا أي قشو فقد أراد الله به خيرا وأدون إلهي خير ولا دوني هدي تالقوا هنا وأدون إلهي سبحانه وتعالى وهوتشي محمد بن السيرين وحري رحمه الله إذا أراد الله تعالى بعبد خيرا جعل له واعظا من قلبه يأمر وينهى رواه ابن نعيم في الحلية إلهي أدون كيسا هدي وخير لدونه قلبي قيسو إلهي كردقا مدى أدون كوانيه قلبي قاقو هدو كوانيو عد كلو كواني سو مباهند قلبي قاقو هدو وناقا كفريو حمانتنا كاريبي وناقا وكفر حيو كقولي الرجاليناي حمانتا وكحمانيو أو كوا عنانيو تاسي واحد علامات تهي إن إلهي سبحانه وتعالى خير وكل الدوني رمضان ولا ليال وبشر إنه كتير قفك مؤمن كأ سيدا أي تهي وصومة خير كي وناقنا قابلة كد دالة أعماشي سقلبك راد آدي آدوين بكو يالانسا وحان رمضان يا أحكام تيدا آدو قد حموقضة الرمى فربضان وإلهي سبحانه وتعالى وكت المامي أما النبي عليه الصلاة والسلام ونوغو إشاري إني أعماش قلبك وناكسن قفك مؤمنك قلبك سايكو كبعنيسو ويكو كورينيسو أعمال القلوب آد بيوتي رب ديهين وحين سوكو بكرنباها أفر أمشان أيام بإذن الله سبحانه وتعالى وقتها كوبا أنا نقول حصوصين دونا وأنس إليه رمضان إيه الصومك إيه عباداتك الله صميني حليل وين بالليل ككوبا الإخلاص وهو أجل أعمال القلوب إخلاصك وأعماش قلبك الله قد صميه وكأوين وأنا كأوها جبسن ويوحي إلهي بني آدم كبوا أبوري إيه تشنك ينسي قلبا دبا وحالله أبوري للإخلاص إلى عبادة الصميان إلهي يكون قاري ليان إلهي درادي سبحانه وتعالى إلهينا وحا دومه وأمري قبقي سبوح كسو أروريي عبادة يخلصون فيها لرب العالمين عباده إلهي سبحانه وتعالى يكون قوني ليان وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين إلهينا وحو تلمامي أدونك إنو نقضو مد مخلصة إلهي عابدها هي عبادة سناي تهي مدو إلهي سبحانه وتعالى أبر احتريه وكقار يليه جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله 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 أكبر الله 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 أكبر لا إله